Would you believe me if I told you that self-doubt is one of the best things that ever happened to you? Would you believe me? May aamini lahayd, may rumaysan lahayd if I told you haddaan kuu sheegi lahaa that self-doubt ka shakiga naftaad ka shakiday is one of the best thing inuu ka mid yahay shayada ugu wanaagsan that ever happened to you oo weligaa kugu dhaca. Soo dhawaada asxaabta, u soo dhawaada YouTube-keena Caalami Official. Hadday tahay markii koowaad aad soo booqato, magacaygu waa Cabaas Jaamac Cali, waxaan ahay macallin dhiga luqadda Ingiliishta. Haddii aad hore uga mid ahayd asxaabta ku xidhan YouTube-kan, waxaan kugu dhiirigelinayaa like, annagana waa noo dhiirigelin. Ku soo dhawaada muuqaalkan maanta oo ka mid a muuqaaladeennii aynu soo qaadan jirnay dadyowga hadlaya markaas ee bixinaya lecture-ka. Seriously. Right now, some of you may be confused. Me too. Right now buu yidhi hadda some of you qaar idinka mida might be confused. Waxaa laga yaabaa inay yara aanay khalkhalsan yihiin oo kale oo yaaban yihiin. Me too, aniguba sidoo kale. But as I learned the truth about self-doubt, my life transformed forever. But as I learned buu yidhi, laakiin sidii aan bartayba the truth about runta ku saabsan self-doubt nafka shakiga inuu qofku naftiisa ka shakiyo runta ku saabsan markii aan bartay ayuu yidhi my life noloshaydii transformed forever waxay isbedeshay si abadin ah ama si yacnihii weligeedba aanay dib ugu noqonin meeshii ay ahaan jirtoo kale ayay isu bedeshay. So today, let's go on a little journey that might transform your life too. Wuxuu yidhi markaa today maantana let us go on aynu ku sii soconno little journey safar yar that might transform your life too kaasi oo laga yaabo inuu noloshaada bedelo. Let's explore what is self-doubt? How does it show up in your life? Haddana wuxuu yidhi let us explore aynu ogaano bal what is self-doubt is nafka shakigu muxuu yahay bal aynu ogaano wuxuu yahay. How does it show up in your life? Sidee buuse noloshaada ku yimaadaa? And how can you make it your friend? How can you make it your friend? Sidaad uga dhigan kartaa nafka shakigana naftaada ka shakido sidaad saaxiib uga dhigan kartaaba aynu imkaan siyeegaynaa ayuu yidhi. Self-doubt is a mental conversation in which your mind questions your ability to Self-doubt buu yidhi nafka shakigu is a mental conversation waa maskax wada hadal weeye oo wada sheekaysi maskaxeed taasi oo buu yidhi in which your mind taasoo maskaxdaadu questions su-aalayso ama su-aal weydiinayso your ability awooddaada maxay to find a desirable solution to a perceived problem. find si loo helo desirable solution xal loo baahan yahay ama xal la rabo to a perceived problem loo helo dhibka la arkayo. Ereyga perceive means si la arkayo ama se recognize la aqoonsan yahay waa yahay. What if I'm not strong enough to handle the pressure of running my business? Waxaan maraynay isagoo markaa leh such as oo soo wada su-aalahay maskaxdeenu inay weydiiso markay doubt ama se shakiga inugu furayso. Waxa weeye su-aalahaasi what if ka waran haddii I'm not strong enough aanan awood igu filan haysan to handle san ula tacaamulo the pressure cadaadiska to run my business inaan ka shaqaysiiyo ganacsigayga. What if I don't know enough to pass this important test? What if ka waran haddii I don't know enough aanan garanayn wax igu filanba pass saanu ka gudbo this important test imtixaankan muhiimka. Ka waran haddii aanan wax igu filan garanayn saanu ka gudbo imtixaankan muhiimka ayuu yidhi halkana. What if I never find my true purpose in life? What if ka waran haddii I never find aanan weligayba helinba my true purpose ujeedadeedii dhabta ahayde in life nolosha. Ka waran haddii aanan helin ujeedadeedii dhabta ahayd nolosha. Do questions like these keep you up at night? Haddana wuxuu yidhi do questions like this su-aalo noocan oo kali
keep you up at night miyay ku soo jeediyaan habeenkii su-aalo noocan oo kale ahi miyay ku soo jeediyaan habeenkii muuqaalka qaybtiisii hore intaasay nagu eegta